kowsar waa mahadsan tahay walaale. markasta waxaa fiican in rajada iyo wax wanaagsan ilaahay laga rajeeyo. rajo aada u fiican ayaan ka qabnaa in kulanka wax ka soo baxaan, sababtoo ah hadda xaaladda hadda soomaaliya ku jirto mustaqbalkii iyo masiirkii ummadda soomaalida oo dhan ayaa wuxuu ku xiran yahay in isafgarad uu ka yimaado wadahadallada hadda loo ballansan yahay. formatkoodii hore uu iska bedelay midkii tooska wadahadalka ahaa madaxda iyo mid hadda dad farsamo yaqaaniin ah oo guddi ay soo wada hadlayaan. markii ay wax ku soo heshiiyaan ay madaxda imaanayso ay gelayso go-aan qaadashadii ugu dambeysay. waxaan ognahay in shirkii ugu dambeeyey ee madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb uu natiijo la-aan kusoo dhammaaday. marka guddigan heerka wasiirada ah xal ma u heli karaan arrimaha la isku mari la-yahay bay kula tahay? waa ila tahay faa'iido ay leedahay baa jirta, sida hadda maarkin oo guddigani uu arrinta wadaxaajoodka iyo wadahadalka u galayo. wadahadalka tooska ah markii hore ay samaynayeen laftirkiisu faa'iido wuxuu lahaa go-aan qaadasho degdeg ah. marka madaxdu iyagu toos u wada hadlayaan, cid kale ulama noqonayaan doodihii iyo wixii laysku qabto ee iyaga go ka gaaraya. arrinkaa ma aysan dhicin, laakiin midka hadda lasoo jeediyo oo ah in guddi la sameeyay faa'iidooyin buu isaga laftirkiisu leeyahay. faa'iidooyinkiisana waxaa ka mid ah waxyaabihii isu jeedjeedka ahaa ee ku saabsanaa shakhsiyaadka hogaaminaya dhinacyada oo iyagu kala aamin baxay oo muddo dheer kala aamin baxsanaa. meesha markay ka maqan yihiin oo ay joogaan dad khubara oo iyaga matalaya, ka bixitaanka ay meesha ka baxday shakhsiyaadkii xoogaa muddada isu jiidayay oo laga yaabay go-aankii masiiriga ahaa ee muhiimkaa dalka ay u gaari lahaayeen inay ka hor istaagayso qabka iyo muxuu ah waxyaabaha shakhsiyanka ah ee iyagu kala qabaan. taasaa meesha ka baxaysa hadda. marka dadka imaanaya waa dad labada dhinac ah oo dhinacyada oo dhan ah farsamo yaqaaniin ah oo iyagu arrinta wax ka wada hadlayo oo iyaga dhexdooda iyad ahaan ama qof ahaan aan wax dhiba dhexdoodii oo taasaa laga yaabaa marka inay hadda toos u abaarto in waxyaabaha muhiimka ah ee laysku hayo go-aan laga wada gaaro. marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee la filayo inay kasoo baxaan kulankan maxaa ka mid ah? waxaa ka mid ah in meel laysla dhigo saddexda arrimood aadka la isugu qabto oo ay ugu muhiimsan tahay uguna adag tahay hadda arrinka gado, xaaladda sida loo maamulayo soo xulidda ama soo doorashada xubnaha baarlamaanka ee ka imanaya somaliland, iyo in laga heshiiyo guddiga oo isaga laftirkiisa doorashada oo dhexdhexaadnimadiisa iyo shakhsiyaadka ku jira wax laga tagan. yani saddexda arrimood waxaan filaynaa in go-aan rasmiga laga soo gaari doono, kabacdina la mudayn doono xilliga doorasho ay dhacayso iyadoo lagu heshiisahay laysku raaco doorasho wada ogola. haddii natiijo fiican ay kasoo baxdo kulankan baydhabo, suurtagal ma tahay inuu dhaco isu soo dhowaansho oo xal laga gaaro qodobadii la isku hayay? haddii wadahadalkani uu hirgalo wuxuu sahlayaa waxyaabihii dhinaa ahaa in doorasho dalka ay ka dhacdo oo ayna sii daba dheeraanin xilligan hadda doorashadii la mudeeyey inay dhacdo ahayd ay baaqatay. marka oo run weeyaan waxaa kasoo baxaya in la heshiiyo doorashadana la mudeeyo, kabacdina ay noo dhacdo insha allahu. markaa ciddii ku guulaysatay ay hogaanka dalka si toos ula wareegto oo aynu ka baxno xaaladda murugsan ee hadda socota. marka haddii wax natiijo ah ay kasoo bixi weysana maxaa dhici kara? wallahi haddii natiijada shirarkan hadda laqa qabanayo ay soo bixi weydo de way iska caddahay. haddii dooran weyno oo buuqa iyo hadda xoogaa qallaasaha siyaasadeed ee hadda dalka ka socda uu sii socdo, waxaa laga yaabaa arrinkaa inuu saameeyo ammaanka, inuu saameeyo dowladnimadii soomaaliyeed ee hadda dib loo soo dhisayey. marka khatartiisuu leeyahay. hadda kuma dhihi karo saasay noqon doonto, laakiin meel qurux badan wadanku uma socdo haddii lagu heshiin waayo.